khamrigan hadda la soo qabtay si sahlan laguma soo qaban askarteena askar ka mid ah loo dhaawac oo isbitaalka u taalla xoog baa lagu soo qabtay laguma soo qaban si kale laguma soo qaban degmadan Galdogob waxay ku taallaa xuduud dheer oo Itoobiya ay la wadaagto xadkaas dheer ayay khamrigu si aan xad lahayn uga soo galaa halkan marka waxaan rabaa madaxweynaha Puntland maanta inaan codsi uga jeediyo ana uga mahadcelinaya dadaalka uu ku bixiyay amniga oo ugu horeyso daroogada in la diriro waxaan leeyahay mudane madaxweyne ciidamadii howlgalkan fuliyay oo maanta khatarta inta la ka badbaadiyay dalka iyo dadkaba abaalmarin bay u baahan yihiin iyo dalacsiin waxaan rajaynaynaa inaad abaalmarisid inaad dalacaysid waan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo waxaad meesha aad arkaysaan waxa weeye khamri waxaa sida uu sheegay garsooruhu waa wax 8,000 oo xabba ka badan waxaa la qabtay bisha 18keedii kuwa ka horeeyana waa la qabtay iyagana waa la soo bandhigi doonaa haddii aan la idmo waxaa lagu qabtay gaariga noohada taargadiisa uu tilmaamay oo 858 ay tahay iyo darawalka Diinax Xuseen baa lagu qabtay waa la xukumay waxaa lagu xukumay meesha in khamrada in la gubo gaarigana waxaa lagu xukumay ganaax darawalkana waxaa lagu xukumay xabsi baa lagu xukumay 6 bilood ah bulshada qaybaheeda kala duwan ee soo dhaweysay oo garab ka siisay ciidanka in la soo qabto daraagan aad ka tirada badan aad bay u mahadsan yihiin waxaan leenahay halka kaga sii dhawaada ciidanku saacadii hayn waa u taagan garabna siiya waxaan digniin u diraynaa ciid waliba oo ku hawlan barnaamijkan khaldan ee khamrida iyo daroogada ugu horeeyaan ay hooyada iyo aabaha u yihiin khamrida iyo xashiishku qof walba oo maanta na dhageysanaya oo ku nool Puntland meesha raba ka joogo Galdogob markaan ka sifayna insha Allah ta'ala meelaha damana u gudbi doonaa ciidanku wuxuu u gudbi doonaa qaybaha kala duwan ee Puntland baashan dhibaatada ku hayso ciidamadii waad maqlayseen kuwii daraawiishta kuwii dawladda hoose kuwii maxaan ku yiraahdaa booliiska waad maqlayseen ay soo gurmadeen oo dhammaan isugu yimaadeen garsoorka hay'adii ugu sareysay maxkamadda darajada koowaad maxkamadda darajada labaad ee racfaanka gudoomiyihii ugu sareeyay Maxamed way garab taagan yahay loo yimid munkarka tirada badan waa khamrigii ugu tirada badnaa oo aan u soo joognay oo waddanka Soomaaliya hal meel lagu gubo riboodka ay bixiyeen garsoorku waa 8,000 oo xabbo wax lagu qiyaasay weeye ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa ta'aala ilaahay baa mahad leh bacdallahi waxa mahad kala leh ciidankii ku guuleystay inay balada qabtaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay yaa ayyuhalladheena aamanu innamal khamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijzun min amali shaytaani fajtanibuuhu la'allakum tuflihuun marka aad baa u mahadsantihiin falalka noocaana waxaan bogaadinaynaa in la ilaaliyo khamriga oo xuduudda Itoobiya Galdogob saaran tahay aad uga soo gala oo lagu dadaalo cidii lagu soo qabtana sidaan oo kale meel fagaara